rugniga koowaad oo ah rugniga dhaqanka ah waxaan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa caaqil maxamed cali xasan oo ku hadli doona marka ugu horeysa afka beesha beerweynta daarood halkan ku soo dhaweyn doona isaguna suldaan cabdilaahi suldaan maxamed suldaan cali shire ku soo dhaweyn doona marka ku soo dhawo caaqil محمد عبد الولي عبد الله iyo سجل مصطفى حسنور ما أنت بهذا المكان عيو لقانا هكذا عاصمة جمهورية السودان وتابع قريب الأصل أنه هتان كهذا يوم أرتاح قبل الدولية مرة حرة وحنا بريانينا سجل مصطفى حسنور إن أنا نصيب يانا ونبي حالة يشيء وحكومي قبيل كستاها هذه وإنتنا لا يلا يفتح كذا ما بركفته هذا بعد يوم ضرب بمكان marka hadda waxaan ka codsanayaa ardayga kale in guriga waa guri wanaagsan oo magac iyo maamuus iyo qiimo leh sidii la arki jiray ardayga waxaan ka codsanayaa annagoo ardayga hadda maanta oo dhan ya sababta waxaan isdib isa soo raaca waa tii la sameeyay dir waxaan si sharaf leh ku codsanaynaa inaan nasiisaan gabadha la yiraahdo Sagal Mustafa Hasanur waanu doonayno inaan kala yiraahdo Maxamed Abdulwali Abdullahi inaan nasiisaan kulliya qabiilada ma'juuriin mashkuuri أنا كأوس عطان تجعينا وأركي لو تارود وقم بمشي كله يوم هيدا لين اختيارشوا هل كان نسيبه كله ولا شو صاحبه بعضه كان بيته ولا شوفه يسمعني لا يرضى أيام كنا شوفه أي تقول ملاي وشيء وردم هذا تلاقي أقواليتي هذا تلاقي مش كده وشيء غلط هذا حسبيتك هذا وضياشي عقاشيته هذا وحجر فيها قوية كده وكذا واستحضر صدها كل اللي تساسو صار وعطاه شرف فحسيت مدن وشرف مدن أرضاه وهو سعيد ما تمريحاني هالقد شوقه وسيدا بيت مدن مدن شفلية يوغي إلى أن حريص تشينا لها قوة وولدي جبيل عبد الله علي غير كودي وياه ما قلت من حمام وياه هو بالقوم قبتين إن عبد الله علي عليها هذا هم هاي ولاد كبار علي عروس فاكر قبل ما أنا عطينا إياه والشرف أنا عطينا إياه ويعنيه بالكذا ليه ذكاس صوبنا بالقوة تقانا هذا أشتي قد برنا قلفتي وهو إلى مانتا شرف مانتا هكذا يسوي يمين يعني واحد ضوغتي بعدين حاجة بارك السنة وانا قد بحدينه يسير المصطفى حسن هو وانا قد صوته يا وصومالي وكان يعني وصحفيتي هو ويناي غير حسنوه فرحمة لغاية ماتوا iyo reer kibeen axmed waxay maanta qaabdiga hoosa reer keega xaga waxa fadhiya xasiinganayo oo waayna oo dhinaca kale oo uga noqonaya qasab xaajaa xasiingay waata oo tafaasiil badan geliyay kullu waa kusoo tala gashay miisaanka idinka soo horeeya sharaf loo milgalana waa loogu timaadeen adiga u socotaa waa dhaqan waa sunnii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si sharaf leh وملجأ أو كرامة أو طلبة أو حديدمة أيام الدين سين. أنا بروي دولة سلطان وكاب الله وكاب وإحنا ماشيين يا يوم. هذا مرة كانوا نبي هرجيسة تقوى كلا 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 واحد يقول هذا وأنا لو واحد كان هيبل ملي هنا شو عيا. لكن أنا عند نادي كانوا يكبرنا إلا كلا هيبل. halka waxa weeye Suudaan lacagtaasi $1,000
oo yaran halkana waxaa ku jira suldaan 30 milyan oo shirka Soomaaliland oo gabaasi ama Suuriya anagoo idinka guddoonay gabadha aad siiseen haddana idinku codsanayna inaan meherka noo raacsan waa qabow meherkina waa idin raacina dhammaanteen markhaatiyo ayaynu ka wadanahay oo guurka arkaantiisa waxaa ka mid a inankiga inanta marka laga yimaado markhaatiyada dhammaanteen markhaatiyaynu ka wadanahay si gaara laakiin maadaama oo siyaasiyiintii golayaashii axsaabta iyo xildhibaanadii golayaasha iyo rag badani joogaan labada suldaan ee isweydiisu waan ku calaamadin doonaa malaha iyagoo maanta ugu kooban xagga salaadiinta marka insha allahu tacaala markhaatiyada labada suldaan suldaan xasan suldaan cabdillaahi iyo suldaan cabdillaahi suldaan cabdisalaam baa markaasi markhaatiyada ku calaamadin doonaa laakiin dhammaanteen markhaatiyaynu ka wadanahay inanta meherkeedu waa 300 oo giraam oo dahaba oo nooca dhexa ah weligeedii oo aabaheed mustafa xasan nuurihina wilaayadeeda way inteeda inaan u guuriyo maxamed cabdiweli cabdillaahi maxamed sagal mustafa xasan nuur meherkeedu yahay 300 giraam oo dahaba oo nooca dhexe 21 ah weligeeda sharciga oo aabaheed mustafa xasan nuur iyo wadisho guurinteeda markhaati ay ka yihiin guud ahaan jamacaas gaar ahaana suldaan xasan suldaan cabdillaahi iyo suldaan cabdillaahi suldaan cabdisalaam sagal kuugu guuriyay 300 oo giraam oo dahaba oo nooca dhexa ku guursada 300 giraam بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم الخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم الخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم أبطي محمدو وحن كان قبرية أقول بالخبير وحن كان قبرية أساعيد ولا عسر أولاد بركة قبطة هي كان قبرية وحن كلية أنا من يبقى نفتكرة قبرية قلت reeraha abtiyaashay ugu dhaqanka badan leh mareexaan iyo ogaadeen baa 1 iyo 2 isu ah kollayba abtigu waa ka dambe sama xalee waxaan filayaa halkaa inaad si geejinto looma kala hadhin baarkii subeera walweeyeen macali abti halkaa waad ka ilaashanaysaa sagalna ilaahay waxaan uga baryayaa iyadana iyadaa ku dooratay doorankaa timi tiyaar baad la aqbalay sidaa ay kuu dooratay adiguna inaad cuusaysid ood garaabaysid oo aanad ku haadin oo aanad salla caleekeen dee waad ilaalinaysaa dardaaranka abti ogow yaa la odhan ninka abtiyaashii waa wagashe inaga ilaali abti aad iyo aad baan kuu salaamayaa abtiyaashina waxaan leeyahay horta xaggano cidda dhala waa la yaqaana abtiyaashii cidda dhalaa waa la yaqaanaayo dee ninka dhacmadi ninka dhaca halkan isaaq cidda u doogudaa waa intaa ka sheego horta sama caleh waxaanu sheegayaa annagoo saasoo kale inaanu diin dhalo oo rag dooga oo daarood ka soo baxa oo isku haya reerta sama caleh duniya waxway jirjiraane in badan baa dee abtiyaadee daarooda haydeen haddaanu dib in yar noqonana dee iska adkays oo yaa cabaw dee sama caleh alacalka abti kaga daaya sanadkaa dibku waa shaqaynaya abti meeluu dhalan karaba inay abti xaflad aad u qiimo badan oo kaftankii siciid baan iigan odhanayaae isaga waa gabadh qaaliya laakiin ninka ay la soo baxeedayna waa nin la kalaas waayo waxaan ogahay inaanay sagal qof dhalinyaro ah oo miisaan lahayn oo u dar aanay inteedan dhinac baatay
baan labadooda ugu mahadnaqayaa dardaarankiisi ciid waa la qabaa uu la dardaarmayey sagalda kalsoonida waa ku qaba inteeda meesha maraysaa hal yarow laftan aan odhanayaa siciid waxaan leeyahay artigayba iga horreeyey saa gala inaan fadhiisto markaan adiga ku arko markii aan isaga arkay ayaan anna xagga fadhiistay awal waxay inaan isweydaarano anna aan artiyaashay la fadhiisto adna aan artiyaashaa la fadhiisto kelmadda saddexaad ee gabka keen odhanaya waxaan leeyahay aroos baynu nahay oo dibbaynu guursanayna waxaan leeyahay guursamayna dube inanayna abtidaya oo habarawona oo sacad muuse ah oo reer axmed ah oo bacayaabaanu la xidhiidha oo inuu mustafa xasan nuura intaa markan ka imaado waxbalkii dadka ka odhan maayo dibku waa wax wanaagsan kama naxno laakiin qoladii reer daariye maxamed jirnay baad dibkii ku dirteen kaa aad daami ku darteen annagu kama cabanaynaanu leenahay ilaahay idin barakeeyo caruusadda waxaan ugu ducaynayaa ducada nebiga ilaahay kulankooda kii khayr qabaa ilaahay ha ka dhigo khayrkooda waa soo dedejinayaa horta markaan halka soo fadhiisanay abtuwaa maxoo hasaa sultaan wuxuu odhanaya dir baanu ka doonaynaa oo baryaha dambe durbaanada siyaasadda ee la garaacayaa lala garanayo hooyadayda iima sheegin aabahayda iima sheegin isaaq iyo daarood baanu naqaanee goobta horta waxay arrimaha siyaasadda iyo reerku waa kalataa aad iyo aad baan akhtiyaashay ugu mahadnaqayaa oo aasabkooda fadhiyo oo aan ahay kollay ragga ku dhaartaa daaroodka laakiin diriya isaaq u sidayn isaaq iyo daaroode jimciyadaha iyo durbada ninbo meel ka garaacayo yaynaa guryaha kula soo noqonin dhaqan baynu lahayn waxyaabaha siyaasaddu waa xusbiyada ku jiro oo kale waa inay kala jaab noqdaanoo madashanoo kale ugu soo qaada runtii anugu baa jeclaysan aad baan idinku mahadnaqayaa inkastoo hoosayaashii dhaqanka qaadeen soomaalidu waxay tiraa hal walba hooskiis maanta waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye laba reer oo muslin ah oo isku mid ah oo isku dad ah oo ka yimid meel keliya oo walaaloobay oo aynu halkan ku darayno maanta ku darnayba reeraha ku soo kordhay islaamka ah waxa weeye hadal badan uma baahna hadal badanna uma kicin siyaasadna maanaan kicin wax kalena maanaan kicin waxaan u bacnay inaanu u mahad celinno arooska iyo aroosadda halkan laga amiyey wanaagooda sida reer isugu yimid waxa weeye u ducayno wiil iyo caano gabadh iyo caano arooska iyo aroosadda inaynu u ducayno si ilaahay isku barakeeyo ee isku umarkaan qabada ee isku naaga ilaahay haka yeelo gurigii lagu soo dhawaado maxay ahaydee xidhiidheeda iyo xil wanaagsan ka wacdo ilaahay haka yeelo idankaa u qaaday ee ugu yaqaan ayaana ognay waxba tiriga daaroodna maaha reeshana ma taalo mareecaana oo reer diiniya oo reer wanaagsan maarka ah oo la yaqaan fadlan oo aanu ku faraxsanahay inuu nala xidhiidho oo soo dhawayno oo ay noqoto taariikh dadkii kala iloobay ee walaalaha dib xididnibadooda
ula soo noqdaan wixii ducada ee carabada hawalay arroofaan leeyahay qoyska cusub himihii ducada naga hooya kuwii rugeeya ee sugaaga ee u basay qaba حق دورة دقامتي ينكر دين كرادي